الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. مدحوينه كحجينك جمهورية الصوماليلاند مدحويني هوري جمهورية الصوماليلاند قدوميها قولها قورتده قدوميها قولها وكيلده قدوميها محكمة الصرع مدحوينه كحجينة دي هوري جمهورية الصوماليلاند قدومياشا سدحدا حسب قرن يهوغان كوده xubnaha golaha wasiirada taliyayaasha ciidamada kala duwan ee qaranka xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka martida beesha caalamka oo ka kooban 25 dal ayaa inala jooga dhammaantood aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaan gaar ugu sii mahadnaqayaa safiirada fadhigoodu yahay caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa warasaabka gobolka Maroodijeex duqa caasimadda madaxda dhaqanka ganacsatada haweenka dhalinyarada ururada bulshada rayidka ah dhammaan ciidamada kala duwan ee qaranka iyo qoysaskooda guud ahaan muwaadiniinta jamhuuriyadda Soomaaliland rag iyo dumarba gudo iyo dibadda. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان شعبي جميل كستوي الدنيا ذا كتشوجان وحلو ذاقية هم بليضة هي فرحة حسكة مناسبة شرية صدم جوردة مالين تقرنكا سديرية تبن كمي لما كن يلحي لبعضه أي نصنت كنا هالدقيقة ذا كده قرناي aqoonsi iyo adkaysi walaalayaal ugu horeyn waxa iga xasuusinaa inay maanta inoo bilowdeen 10 maalmood ee ugu khayrka badnaa sanadka islaamka sida walla quraankiisa ku xusay falligooda Allah hayna siiyo cibaadada haynaga aqbalo nabadda horumarka iyo qarannimadana ay noo sii xoojiyo muslimiinta u tagtay cibaadada beydka ilaahayna waxaan u rajaynayaa in rabbi ka aqbalo acmaasha khayrka badan waxaan u mahadnaqayaa alleh inagu simay inaynu isugu nimaadno xuska dabaaldegga iyo damaashaadka maalinta qarankeenna maalinta qaran ee uu leeyahay muwaadin kasta oo Soomaaliland u dhashay waxaa farxad gaar ah inoo ah in maanta uu yahay xuskii koowaad ee aynu xusayno 18 May iyadoo aynu nahay jamhuuriyadda Soomaaliland ee la aqoonsaday waxa kale oo aan shacbigayga ugu bishaareynaya in madaxweynaha dawladda Israa'iil uu maanta warqadaha aqoonsiga ee danjiranimo ka gudoomayo سفيرك إدمان إسرائيل الصوماليلاند دنشيري دكتور محمد حاج وحاو نقول دونا دنشيري وقوري إلا أغنسية أي جمهورية الصوماليلاند يالاتو شان يصدن سنة كهر سيدي يتوبكي مي كل سقال بقول كوبي سقاشنكي أيين مقالة برعاكو قادناي قوان كي تاريخي قاها aynu dib ugu soo noqonay qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland go'aankaasi ma ahayn nacayb iyo caadifad midna wuxuu ahaa go'aan ku dhisan casharadii aynu ka baranay Israa'iil lagu hungoobay ee Soomaaliland iyo Soomaaliya dhex maray 1 Luulyo 1960 waxaynu u ducaynaynaa halyeeyadii noloshooda hantidooda iyo danahooda shakhsiga ahba u sadqeeyay in ubadkoodu iyo ehelkoodu ay gaadhaan himiladii u rimoobay iyaga
waxaan u ducaynaynaa haldoorkii bulshada iyo guurtidii nabadda iyo dib u dhiska qaranka dhidibadda u taagtay waxaan u mahadnaqayaa hogaamiyeyaashii seeska u dhigay dhismaha dawladnimada iyo hirgelinta dimuqraadiyadda oo sababtay nidaamka qoriisu dhiibka ah ee aynu horumarka aynu ku gaadhnay waxaan bogaadinayaa guud ahaan muwaadiniinta reer Somaliland ee adkaysigoodu ku simay aqoonsiga aynu haysanno maanta Jamhuuriyadda Somaliland waxay ka soo baxday dhammaan shuruudihii looga baahnaa dal mas'uul ah nabad ah sharci iyo dimuqraadiyad ka jirto xuduudadiisana la yaqaano dunidana xiriir wanaagsan kula macaamila taasi oo keentay in su'aasha maanta Jamhuuriyadda Somaliland dawladaha weydiisaa aanay ahayn ma u qalanaa aqoonsi balse ay tahay goorma ayaad intiina kale aqoonsanaysaan Jamhuuriyadda Somaliland waxaan u mahadnaqayaa dawladda Israa'iil oo noqotay dalkii koowaad ee dunida si buuxda u aqoonsaday jiritaanka qarannimada iyo madaxbannaanida Jamhuuriyadda Somaliland sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa dalalka aynu jaalka iyo saaxiibka nahay iyo dal kasta oo garowshiye ka muujiyey qadiyadda Somaliland waxaan mar kale cusboonaysiinayaa baaqeennii aynu dunida kaga codsanaynay in la aqoonsado xaqa sharci taariikheed iyo akhlaaqeed ay Jamhuuriyadda Somaliland u leedahay jiritaanka qarannimadeeda waxaanu gacan saaxiibtinimo iyo iskaashi u fidinayaa dalalka kale ee aynu deriska nahay iyo guud ahaanba qaaradda Afrika iyo dalalka Carabta iyo Islaamka waxaan ugu baaqayaa dalalka xubnaha ka ah midowga Afrika in wax laga barto cawaaqib xumada qaaraddeena ka soo gaadhay isku tolidda dawladaha aan israaci karin iyo isku qasbidda nidaamyo siyaasadeed oo aan isqaban karin waxaan ku talinayaa in la qaato taladii guddigii xaqiiqa raadinta ahaa ee midowga Afrika u soo diray Jamhuuriyadda Somaliland 2005 mustaqbalka wanaagsan ee Afrika wuxuu ku xidhan yahay istixgelin nabad ku wada noolaanshiyo iyo iskaashi aan la isku khasbin dadka Soomaaliyeed inta sida xun waxa loogu sheegayna waxaan mar kale ugu celinayaa una iftiiminayaa in Jamhuuriyadda Somaliland ee la aqoonsaday ay tahay dal kale oo soo kordhay qowmiyadda Soomaaliyeed dalkeena Somaliland waxa ka dhab ah niyad wanaagii u abwaan Ali Seeyo suugaantiisa ku cabiray markuu lahaa taladaydan goostee cidna eed kamaan gelin arrin gubasho keentiyo xaaje geedka lala tago golaha lama niman gacal iyo xigaalow Soomaaliyay garo kala guurkii maahe kala gurasho weeye garo dalal badan oo sideedna midnimo ku tamarin waayay ayaa maanta mid kasta gaarkiisa u yahay barwaaqa sooran awood dhaqaale iyo diblomaasiyadeed ku jooga Serbia iyo Montenegro ayaa marag dhow inoogu filan labadan dal waxay isaga mid yihiin wax kasta oo Soomaalidu wadaagto dadkoodu waa isku isir waa isku af waa isku diin waa isku dhaqan waxa ka dhaxeeya taariikh mid ah iyo sooyaal siyaasadeed oo aad u dheer iskood bay u midoobeen 1918 88 sannadood kadib Montenegro waxa uu soo baxday
inaanay danteedu ku jirin wadajirka haddii Somaliland dadkeedu boqolkiiba 97 ugu codeeyeen madax bannaani dalka Montenegro aftidii laga qaaday bishii Juun 2006 dadkiisa boqolkiiba 55 kaliya ayaa u codeeyay goosashada taas ayaanu ku noqday qaran madax bannaan intii ka dambeysay qarannimada dalka Montenegro 167 ayuu kordhay dakhliga wax soo saarka gudaha ee GDP-ga la yiraahdo halka dalkii uu ka go'ay Serbia 250% kordhay ganacsiga iyo dhaqaalaha dhexmara labada dal wuxuu maanta kordhay boqolkiiba 300 20 sanadood gudahood waxaan aaminsanahay in Somaliland oo qaran madax bannaanahay ay wax badan ka tari doonto horumarka dhaqaalaha iyo xasiloonida siyaasadeed ee dalka aynu jaarka nahay ee Soomaaliya iyo guud ahaanba gobolka geeska iyo bariga Afrika Jamhuuriyadda Somaliland waxay u gudubtay marxaladda horumarka iyo dhismaha xuduudda qarannimada waxay isu diyaarinaysaa inay noqoto xuduud dhaqaale oo Afrika ku xidhaysa badda cas iyo suuqyada adduunka Jamhuuriyadda Somaliland waxay xoojinaysaa amnigeeda iyo xasiloonideeda waxay dadaal ugu jirtaa si casriyeynta kaabayaasha dhaqaalaheeda waxaanay dunida ku soo kordhinaysaa fursado dhaqaale iyo maalgashi oo dihin xukuumadda wadajir iyo waxqabad waxay sanadka 2026 mudnaanta siinaysaa ictiraafka kobcinta dhaqaalaha maalgashiga iyo casriyeynta ciidamada qaranka ee kala duwan si loo kobciyo xirfadahooda anshaxa iyo kartida sii xoojinaya awooddooda difaaca amniga qaranka iyo ilaalinta xuduudihiisa munaasabaddan maanta qaran awgeed waxaan salaan iyo duco u dirayaa ciidanka qaranka ee heeganka ugu jira difaaca qaranka ciidanka booliska ciidanka asluubta ciidanka ilaalada xeebaha ciidanka socdaalka iyo xuduudaha iyo ciidanka debdemiska halyeeyada dirayska u xidhan difaaca qarankooda iyo hay'adaha amniga qaranka guud ahaan waxaan leeyahay walaalayaal waddaniyadda nafurkiinna daacadnimada iyo dhabaradaygiinna ayaa tiirka ugu weyn ee ku dhisan tahay nabadgelyada xasiloonida iyo sharafta qarannimada Jamhuuriyadda Somaliland la aqoonsan yahay qarankiinuna wuu idin ogsoon yahay waanu idin abaalgudaya muwaadiniinta Somaliland ee dalka iyo dibaddiisaba jooga waxaan idinku bogaadinayaa dal jacaylka iyo dadaalka aan joogsiga lahayn ee aad qadiyadeenna Somaliland ku garab taagan tihiin waxaan qurba jooga si gaar ah ugu baaqayaa inay fariinta Jamhuuriyadda Somaliland gaarsiiyaan golayaasha dunidu ku kulanto iyo fagaaro kasta oo caalami ah iyaga oo ah diranayaal dalkooda u adeegaya walaalayaal dimuqraadiyaddu waa guusha ugu weyn aynu maanta ku faanno waxaa waajib ah inay korto oo ay horumar samayso waajib baa naga saaran xoojinta hay-adaheenna dimuqraadiyadda dib u habaynta shuruucda iyo xeerarka dalka iyo inaannu horumarinno nidaamkeenna doorasho xukuumad ahaan way naga go'an tahay inaannu ka shaqayno waajibaadkaas dadkaygu in siyaasadda aynu ku kala aragti duwanaannaa waa sababta aynu nidaamka dimuqraadiga ah u qaadannay laakiin yaynaan oggolaan in kala duwanaashaheennu siyaasaddu uu dhaawaco qarankeenna axadigeennu waa in qarannimada Somaliland ay ka sarrayso wax kasta oo ina qaybin kara
waxaynu nahay ummad ilbaxa oo wada hadal iyo ismaqal ku xallisa caqabadaha ka hor yimaada Somaliland lama kala laha loomana kala abtirin karo waxa wada leh dadkeeda alla ku beeray mustaqbalkeeduna wuxuu ku xidhan yahay ilaalinta wada lahaanshiyaha iyo midnimadiisa dalka wuu inaga badan yahay khayraadka ku jiraana wuu inagu filan yahay waxaynu u baahannahay nabad iyo midnimo Somaliland mustaqbalka dhow waxay noqon doontaa dalalka dunida ugu hodansan insha Allah waxaanu mahadnaqayaa dalalka aynu saaxiibka nahay iyo hay'adaha caalamiga ah ee aynu wada shaqaynta leenahay maalmihii ugu dambeeyey siyaabo kala duwan noo soo gaadhsiiyey hambaliyada iyo bogaadinta maalinta dib u xurashada qarannimada jamhuuriyadda Somaliland ee 18 May dhammaan dadka reer Somaliland gudaha iyo dibadba waxaan leeyahay farxad iyo badhaadhe ku damaashaada oo ku dabaaldega allaha barakeeyo jamhuuriyadda Somaliland dalkeeda iyo dadkeeda hambalyo 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 Somaliland ha noolaato Somaliland ha noolaato Somaliland ha noolaato